بسم الله. magacaygu waa Cabdishakuur Saciid Cabdi. maanta waxaan halkan ku duubi doonaa maanso la magac baxday qabyaaladda inoo asm. maansadu waxay ka hadlaysaa waxyaabaha maanta taagan Soomaalidan kala qaybsan. Soomaalida runtii qabyaaladdu aad ula xadhay. abwaanadii Soomaaliyeed ee waaweynaa ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiye badankood way ka gabiyeen way ka maansoodeen qabyaaladda. tusaale Allahu naxariistay abwaan Cabdullaahi Sultaan Timcade waa tuulaha dugsi meel qabyaaladda waxay dumsan mooyee. Allahu naxariistay Maxamed Xaashi Dhamaagaaree waa tuulaha iska daa qabiilo qarankeena oo idil qol yar baan u haystaa. sidoo kale erebixin kooban waxa ka bixiyay abwaankeena weynaa ee Soomaaliyeed Ilaahu naxariistay Cabdiqaadir Xirsi Yamyam waa tuulaha qabiil waa qab iyo il. marka abwaanada Soomaaliyeed runtii aad bay uga hadleen qabyaaladda. Soomaaliduna inta badan waa dadka cimri qaadashadoodu ay yar tahay. waxaan maanta halkan kaga duubi doonaa maansada la magac baxday qabyaaladda inoo asm. maansadu waxay odhanaysaa sidan: qurunta Soomaali oo dhan waxaa qayrkood ka reebay qabyaalad inay horseeda qofnaba ka habaabi maaye haddii aynu qoriga tuurno oo aynu qoomiyad ahaano quriyo maanba u midaysan qaflad iyo boob ka dhaafno samaha aynu wada qorshayno waa hoy dulmi iyo qabiilku qabyaaladda aynu asm. qabyaaladu waa dulliye xabaal haddaynan u qodin qarannimo taabi mayno quruuma hadday xagaadhay abidkan wax la qaybsan mayno. adduunka kuwaa qabsaday qabiilkuma ay bahoobin arliga waxa qaarad jira quruumaha nool ifkaba hogaankooda kuwaa qabsaday qorshay ku hanteen dunida. innaguna qabyaaladiyo waxaan qaadir ogolayn rasuulkiisina uu qiray inay tahay shay qarmuun ayaynu qondaynaynaa. qabyaaladu waa dulliye xabaal haddaynan u qodin qarannimo taabi mayno quruuma hadday xagaadhay abidkan wax la qaybsan mayno. haddaynan qoomaha dhexdeenna qadafyadaynu kala galniyo godobahaynu kala qabniyo xumaha laabaha ku qaadhay waxa uu qarsanaayo uurku haddaynan kala qafiifin qarniyo wixii dhacay ilaawin qoomiyad walaalaha ahaanin qila afkeenana la suulin weligeen qiimo yeelan mayno. qabyaaladu waa dulliye xabaal haddaynan u qodin qarannimo taabi mayno quruuma hadday xagaadhay abidkan wax la qaybsan mayno. intaynu qorigiyo rasaasta qiyaaslii hurgufaynay intaynu qoloqolo u dirirka dabkiyo hurunaynay qiiqa intaynu qowda isu haynay intaynu qofriyo qof weynba anaa qolo fiican haynay intaynu dominka isu qoollay qayrkeen bay noo tashaday dalkeennii bay qaybsadeen welina qaafil baynu nahay qafilana way nagu xidheen. qabyaaladu waa dulliye xabaal haddaynan u qodin qarannimo taabi mayno quruuma hadday xagaadhay abidkan wax la qaybsan mayno. quruun muslim sheeganaysaa haddana qabiil diidu weyday qayrkood ka hadha baynu nahay qaabkaa haddaan la bedelin markuu qiyaamuhu dhacee qaadir la hor taagan yahay malaa'igta qalinka haysaa dunuubtaynaga qoreen markaynugu wada qiraan jannada laynaga qafuli qur baynu cadaab u geli intaan qiyaamaha la gaadhin dadyow qaadirkii ka baqa qabyaaladda joojiyo qowlkii nebiga iyo sunnaha qur-aanka dhabu rumeeye qowlkii nebiga iyo sunnaha qur-aanka dhabu rumeeye.